مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan waxaan hore usii wadaynaa silsiladii siirada nabiga caleyhi salaatu wasalaam. Waxaan kasoo sheekeynay safarkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo 12 sano jira uu aaday dhanka iyo Shaam, iyo in safarkii isagoo wadada kusii jira laga soo celiyey oo Maka dib loogu soo celiyey markii uu ku taliyey ninkii raahibka ahaa ee la oran jiray Baxiira Raahib in maaragtay Maka dib loogu celiyo oo aanan Shaam hore loogu sii wadin ayaan kasoo sheekeynay. Marka Maka ayaa lagu soo celiyey, meesha ayuu marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ku barbaaray isagoo marka adeerkii Abi Taalib uu maaragtay la noolaa oo la joogay. Magaalada Maka waxay ahayd meel uu shirkigu ku faafay iyo guud ahaanba dhulka Carabta asnaamtii laga caabudayo maxay ahayd jaahiliye aad u ballaaran ay maaragtay dunidii oo dhan ay hareysay si xalaqaadkii hore aan uga soo sheekeynay. marka bi'adaas oo dhankii caqiide ahaan iyo fikir ahaan dadku saas ay u baaba'san yihiin, dhankii akhlaaq ahaan iyo nolol ahaanne walow ay carabtu waxyaalo badan oo sifaad fiican ay lahaayeen, laakiin haddana meelo badan aad bay uga liiteen dhanka akhlaaqda iyo nidaamka ijtimaaciga. marka bi'adaas asagoo nabiga caleyhi salaatu wasalaam kusoo dhex koray, haddana ilaahay baa ricaayo gaara siiyey oo ka ilaaliyey wixii dadkaasi ay ku dhex jireen, asagoo markaa ka nadiifa oo maaragtay nolol qiimo badan oo ilaahay ricaayanayo oo khadwo kasta iyo tallaabo kasta uu qaadayo ilaahay maaragtay u hagayo ayuu ku soo noolaa salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh. marka tusaalooyin baan kasoo qaadanaynaa ricaayada ilaahay uu siinayey iyo tarbiyada ilaahay uu siiyey maaragtay oo aanan la-aanteeda aysan suurtageli lahaynba inay maaragtay waxyaalaha haddaan soo qaadeen ay dhacaan. mithaalka ugu horeeya waxaa weeye dhanka dadka caqiidadooda iyo inxiraafaadkii ku jiray, asnaamtii caabudi jireen, asnaamtii u gowraci jireen, baraka ka raadin jireen xoolahooda inay maaragtay u barakeeyaan iyo noloshooda dhanba. marka maalin baa waxaa dhacday nabiga caleyhi salaatu wasalaam in qolo maaragtay gaaladii ka mid ahay oo neef ay gowraceen, hilibkiisii bay maaragtay markii ay diyaariyeen bay nabiga u soo dhiibeen macnaha. marka hilibkii markii loo keenay wuu ogaaday inuu hilibkaa yahay hilib maaragtay ka mid a macnaha xoolihii ay asnaamta u gowraci jireen iyo kuwii asnaamta magacooda ay ku gowraci jireenba ka mid ah inuu yahay. wuxuu yidhi innii laa aakulu maa tadbaxuuna calaa nusubikum walaa aakulu ilaa maa dukira smullaahi calayhi. marka uu ka cudur daartay waxa ay gowraceen inuu cuno, wuxuuna yidhi macnaha aniga wix ilaahay subxaana watacaala magaciisa lagu gowracay keliya ayaan cunayaa macnaha. marka waxaa mushrikiinta ay qasanayaan waa uu ka maaragtay fogaan jiray. waxaa kaloo ka mid a tusaalooyinka in macnaha haddii lagu dhaariyo bilaati walcuza uu diidi jiray macnaha, baynamaa bulshada asnaamtii caabudayan weyneynayaan ay ka mid tahay. dadku markay maaragtay isdhaarinayaan waxay isku dhaarin jireen maaragtay bilaati walcuza. qofka hadduu dhaarinaya wuxuu leeyahay axlif bilaati walcuza, haddii kan kale maaragtay u dhaarinayan astaxlifuka bilaati walcuza buu leeyahay.
marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maaragtay dhowr jeer lagu yiri yacni astaxlifuka billaati walcuza markaas baa waxaa laga soo wariyey macnaa inuu yiri yacni laa tastaxlifnii bihima hay ugu dhaarinin labadaasi maaragtay yacni labadaasaan u necbahay wax kaloo aan u necbahay ma jira macnaha asnaamtii necabkoodii baa ilaahay qalbigiisa geliyey waxaa kaloo tusaalooyinka ka mid ah in maalmaha ka mid a isagoo ari macnaha raacaya weliba xilli habeen fiid ay tahay ayuu maaragtay wiilkii ariga la raacayay ayuu wuxuu ku yiri ka waran haddaad maaragtay arigaan ii waardiyeyso anigana xoogaa waxaan rabaa magaaladii maka inaan tago oo meelaha dhalinyaradu ay ku caweeyaan aan xoogaa soo fariisto marka wiilkii jaanis umaan helin marka caawaan rabaa inaan hal mar aan tage xoogaa arigaan iiga warqab ayuu ku yiri marka wiilka waa uu ka ogolaaday wuu soo baxay markuu magaaladii soo galay buu guriga wuxuu ka maqlay music laga raacay marka wuu weydiiyey wuxuu yiri waa maxay waxaa la yiri aroos maaragtay hebel iyo heblaaye arooskoodii waaye marka meel u dhow fadhiistay si uu maaragtay musictii iyo wixii u dhageysto isla markiiba ilaahay subxaana watacaala hurdo ku soo riday meeshii uu ku hurdooday ilaa waagii ka baryey ilaa qoraxdii ay kulaatay kulaylkii qoraxda uu kiciyey ayuu ku soo kacay habeen labaad oo dhan isku dayay sidii oo kale ku dhacday markii marka qalbigiisa ilaahay ka saaray uu macnaha dareemay inuusan arrintan isaga maaragtay ku habboonayn ilaahay ka celinayo sidaas ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku soo barbaaray oo ilaahay maaragtay waxaas ummadaasi ku jireen oo khaladaad ah ilaahay uu ka dhooray wuxuu noqday qof bulshada aada looga jecel yahay maaragtay lagu yaqaano akhlaaq wanaagsan dadnimo lagu yaqaano runsheeg sidqul xadiid lagu yaqaano wuxuu ahaa qof aada u dulqaad badan ayuu ahaa qof aada u dhowrsan ayuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dadku ballanta markay maaragtay qof ballanta aada u ilaaliyo oo ciddii uu ballan la galo ballantiisii oofiya ayuu ahaa ammaanada maaragtay yacni aada u ammaano badan oo maaragtay ilaa ay u bixiyeen asaadiqu alamiin kii runta badnaa ee ammaanada maaragtay ku xildheeraa ee amiinka ahaa bay maaragtay ku tilmaameen yacni sifo kasta oo dadka lagu jeclaado oo qofku maaragtay qiimo iyo makaano iyo sharaf uu ku yeelanayo baa ilaahay subxaana watacaala siiyey martida aad buu u wanaajin jiray maxay ahayd dadka masaakiinta waa maaragtay qof waxtar u ahaan jiray qofkii maaragtay musaacado iyo kaalmo u baahan qof maaragtay kaalmeeyo oo saacido u ahaan jiray runtii bulshada dhexdeeda qof maaragtay aad uga dhex muuqda ayuu ahaa waana inta aanan nebinimadii ama waxyigii uusan kusoo deganin marka tusaalooyin yar ayaan kasoo qaadanaynaa oo arrimaha muujinaya tusaalaha koowaad waxaa waaye nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo dhalinyaro ah ayuu wuxuu ka qayb galay heshiis ama isbahaysi la oran jiray xilful fuduul heshiiskaas ama isbahaysigaas wuxuu ahaa wuxuu ka dhashay macnaha nin reer yemana ayaa wuxuu keenay badeeco ayuu keenay magaalada maka markuu badeecadii keenay ayaa waxaa ka gatay badeecadiisii nin la oran jiray alcaas ibni waa'il oo maaragtay camr ibn alcaas radia allahu canhu aabihiis ah marka caas ibni waa'il markuu ka gatay lacagtiisii buusan siinin wuu iska dabameeriyey wuu iska daba wareejiyey markii uu lacagtii marka ka daahiyey uu rafaadiyey ayaa ninkii wuxuu ku dacweeyey rag madaxdii ama ashraaftii quraysh rag ka mida marka raggii uu u tegtegeyna way saacidi waayeen markuu ka quustay buur buu maaragtay dul istaagay macnaha koray markaasuu ashcaar gabayo u tiriyey dadkii dhan waa maqlayaan oo maaragtay dulmiga loo geystay ka hadlaya uu leeyahay yaa ii gurmanaya marka waxaa maqlay oo markii ugu horreysay u istaagay zubayr ibni cabdilmutalib oo nabiga calayhi salatu wasalaam adeerkiis ah kadibna rag kale uu isugu yeeray maaragtay oo maaragtay waxaa lagu kulmay guri nin la oran jiray cabdullaahi ibnu jadcaan gurigiis ayaa lagu kulmay marka raggii meesha ku kulmay oo shirka ku yeeshay waxaa kamid ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo markaa dhalinyaro ah ayaa maaragtay shirka ka qayb galay meesha marka waxaa lagu ballamay in marka koowaad ninkan loo gurmado xaqiisana loo soo dhiciyo marka labaadna in maka aan qofna lagu dulminin haddii qof lagu dulmiyana kulligood maaragtay inay u wada istaagayaan ilaa qofkaas xaqiisa loo soo celiyo macnaha markii intaa lagu ballamay waxaa lasoo aaday alcaas ibni waa'il waxaa layidhi ninkan odagaa xaqiisii iyo xoolihiisii halkan iska soo dhig hadda markuu arkay odayaashii reer maka uuna ogaaday inuusan diidi karin si kastuu isugu dayaba waxa waaye xoolihii ninka lahaa wuu baxshay kadibna waxaa noqotay arrin dadkii ka hor istaagta
in magaalada dadka lagu dulmiyo. Marka heshiiskaas ayuu ka qayb galay, marka isagoo weliba da'yar, yacni waxay muujinaysaa makaanada iyo maqaamka uu ka dhex joogay bulshada dhexdeeda. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waagii dambe markii ilaahay subxaana watacaala risaalada ku karaameeyey wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, gurigii cabdullaahi bnu judcaan waxaan kaga qayb galay xilfi. haddii hadda anigoo fil islaam dhexdeeda laigu yeero xilfigaasoo kale oo laleeyahay macnaha ummadii dadkii dulmigii laga hor istaagayo in macnaha uu ka qayb geli lahaa. lan islaamku wuxuu u yimid baa waxay tahay yani in yutamima makaarim alakhlaaq oo ilaahay subxana watacaala cibaadadii loo khaalis yeelo oo kadibna noloshii dadka in cadligaas iyo nidaamka ay ku noolaadaan oo sharcigaas ilaahay subxana watacaala u kala hagayo. marka islaamka wuxuu u yimid baaba ayayba ka mid tahayba rafcu dulmi can innaas. marka nabiga calay sala slam marka wuxuu leeyahay haddii maantay fil islaami la iigu yeero xilfi kaa la mid ah waan ka qayb geli lahaa ayuu leeyahay. tusaalaha labaad waxaa weeye kacbadii ayaa daadad badan baa waxay saameeyeen kacbadii dhismaheedii ilaa ay ku dhawaatay inay dunto gabi ahaanba. marka odayaashii reer Maka isku yimaadeen waxay arkeen marka inay laabudda tahay in kacbadii la dhiso oo tajdiid albinaa lagu sameeyo oo darbigii inta la dumiyo dib loo dhiso. marka arrintii la isku waafaqay waxaana la yiri lacag aanan macnaha xaaraan ahayn oo lacag nadiif ah kaliya macnaha in dhismaheeda loo adeegsado. marka nin kasta oo dakhligiisa iyo xoolihiisa meelo xaraam ay ka yimaadeen ama dhac iyo boob ay ka yimaadeen ama dulmi dad loo geystay ama wax la mid ah, wax kastoo mawaaridda xaaraamta ka mid ah inaanan la gelinin, wixii nadiif ah kaliya la isku keenay. marka sidii marka waxaa loogu istaagay kacbadii in dib loo dhiso. markii hore xataa way ka baqeen in laana waxay u baahan tahay darbigii in la dumiyo. marka way baqeen, waxaa bilaabay Waliid ibn al-Mughira markuu qayb ka mid ah dumiyey oo ay arkeen inaysan waxba gaarin ay iyagana soo wada yimaadeen oo ay dumiyeen. marka kadibna dib baa loo dhisay, wayna kala qaybsadeen maadaama mujtamaca qabiili uu ahaa, qabiil kastaba qayb baa loo dhisay inay dhagaxyadiisa qaadaan laana waa sharaf lagu kala dagaalamay. laakiin markii la soo gaaray xajar al-aswadka meeshiisa la soo gaaray yaa dhigayaa la yiri waana hal dhagax. marka waa lagu dagaalamay, marka yaa dhagaxaan dhigaya oo meeshiisa gelinay inay aad bay isugu buuqeen, waxay ku dhawaadeen inay seefaha isku qaataan ay ku dhawaadeen. markaasay isdejiyeen yiraahdeen wareer dhayaanan mushkiladda weyneynin aan macnaha arrintan si degan ku xalino. waxay yiraahdeen marka way tashteen maxaan sameynaa, waxay yiraahdeen qofka ugu horeeya ee noo yimaada halkan ka soo gala aan u dhiibano inuu isaga na kala xakumo. marka iyagoo fadhiya waxaa soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam. markay arkeenba waxay wada yiraahdeen as-saadiqu al-amiin, ninkan waa ninkii saadiq al-amiinka aan dhahnay, ninkan waa raalli baan kuna yiraahdeen. sidii marka nabiga calayhi salaatu wasalaam loogu sheegay arrintii si xikmad leh ayuuna u xaliyey. go-ayuu soo qabtay, dhagaxii uu saaray, qabiil kastana wuxuu dhahay qof soo saarta go-ay gees ha ka qabto, ha la wada qaado meeshii loogu talagalay xajar al-aswadka hala dhigo. markii meesha la dhigayne asagaa meeshii ku riixay oo go-ayna ka soo bixiyey. marka ayagana meesha way xalkaas xakiimka way ku degeen. markii horena qof ay qadarinayaan oo ay ku farxeen inuu asaga yahay qofka kala xalin doono ayuu noqday. marka guud ahaan ilaahay subxaana watacaala tahayaa ama diyaarin aad u habboon ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam siiyey u diyaarinayay waajibkan iyo mas-uuliyaddan uu qaadi doono. shaqo ahaan nabiga calayhi salaatu wasalaam xilliga hore noloshiisa wuxuu ka shaqayn jiray raacidda ariga ayuu ka shaqayn jiray. markii hore bani sacad uu la joogay isagoo yar ariga uu raaci jiray. waataan kasoo sheekeynay xaadidkii laabtiisa la dilaaciyey isagoo markaa ari raacayo 4 jir ilaa 5 jir meelaha ah. kadib markuu Maka yimidne shaqadaasuu ka shaqayn jiray, ariga ayuu raaci jiray. markuu 25 sano soo gaaray ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay tijaaro iyo ganacsi inuu ka shaqeeyo. marka xoolo ay leedahay Khadiija bintu Khuwaylid radiyallahu canha ayuu ganacsi ahaan ugu baxay Shaam u aaday inuu kasoo ku ganacsado. Khadiija bintu Khuwaylidna waxay ahayd haweeney ganacsata ah oo hanti leh oo sharaf iyo maqaamna magaalada Maka ku dhex lahayd. marka ragga ayaa xoolaheeda ugu ganacsan jiray oo intay hantideeda u dhiibato ayay qaadi jireen oo badeeca kusoo gadi jireen ay sii iibin jireen. kadibna wixii faa'iido soo baxa
ayay mudaarabo ku siin jirtay, macnaha percentage ama maaragtay nisba qadar ka mid a ribxiga ayay siin jirtay qofkaas. marka waa barnaamij lagu shaqeeyo oo jiro oo la isticmaalo. marka tiibuu isagana nabiga calayhi salaatu wasalaam khadiijo kula shaqayn jiray. marka hantideedii bay u dhiibtay, uu baxay shaam buu aaday. waxa ay maaragtay raacisay khaadim iyada ay lahayd oo la oran jiray maysara. labadoodii baa marka shaam aaday oo tijaaradii u baxay. marka maysara intuu nabiga la socday calayhi salaatu wasalaam aad buu ula yaabay dhowr shayba maaragtay. marka hore dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo baarinimadiisa. badanaa ragga ganacsatada ah dadka addoommada iyo khadamka oo la socda way dhibaan, shaqaday ku dhibaan, dhaqankay ku xumeeyaan, hadalladay maaragtay ku dhibaan. laakiin wuxuu nabiga calayhi salaam ka arkay naxariis, hadal wanaagsan, maaragtay maxay ahayd akhlaaq aad u heer saraysa ayuu ku arkay maaragtay. wuxuu kaloo maaragtay dareemay waxyaalihii maaragtay la sheegay kulli calaamadihii riwaayaad badan ay sheegayaano in maaragtay daruur ay kor socoto, in macnaha qof dadka kale uusan la mid ahayn ayuu runtii aad u dareemayey. markii uu soo laabtay oo khadiijana maaragtay ay aragtay xoolaheedii barakada gashay, yacni faa'iidada uu keenay inay aad uga badan tahay faa'iidada ragga hore ay keeni jireen, waana daacadnimada iyo ammaanada iyo barakada ilaahi subxaana watacaala ee nabiga calayhi salatu wasalaam camalkiisa u dhex dhigay. dhanka kalena uu maysaro uga sheekeeyey akhlaaqdiisa wanaagsan, dhaqankiisa heerka sare ah iyo maaragtay sifaadkii cajiibka ah uu ku arkay uga sheekeeyey. runtii khadiija aad bay maaragtay qalbigeeda u saameeyey, waxayna maaragtay doontay in ay nasiib u yeelato in ninkaa qiimaha badan leh uu guursado oo ay maaragtay reer iyo nolol ay wada wadaagaan. marka waxayna ahayd qof ay madaxda Quraysh soo doonan jireen oo rag kala duwan bay soo doonteen, laakiin ay celisay oo maaragtay ay diidi jirtay. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay u dirsatay haweeney saaxiibadeed ahayd oo la oran jiray Nafiisa, ayay u dirsatay tiri maaragtay ku soo qaad arrintan. macnaha gabadhii marka ku soo qaaday in macnaha uu nabiga khadiijo guursado, sidii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam adeeradiisa u soo watay. marka ayay u dooneen khadiijana marka waa la siiyey. sidaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu khadiijo ku guursaday. runtii aad bayna waxay u ahayd xaas aad u qiimo badan oo nabiga garab istaagtay, oo runtii maxay ahayd noloshiisa aad saameyn weyn ugu yeelatay. qof qiimo badan oo maaragtay nabigana garab iyo maaragtay kaalmo u ahayd. markuu nabi noqday uu rasuul noqday ilaahay soo dirayna yacni u noqotay qof dacwadiisa marka ugu horeysa qofka ugu horeeyay islaamay oo nabiga rumeeyo ibni aadan kale uusan ka horeynin bay ahayd. markii labaadna nabiga garab istaagtay oo dacwadiisa ku garab istaagtay oo ka ilaalisay daal iyo rafaad ka ilaalisay, oo ka ilaalisay qayle iyo buuq iyo culays ka ilaalisay, maaragtay naxariis iyo racaayana la garab istaagtay. maqaam iyo darajana gaartay in ilaahay subxaana watacaala rabbigii maaragtay khalaayiqda dhan abuuray inuu ilaahay salaan usoo faro oo maaragtay jibriil usoo diro uu yiraahdo gaarsii maaragtay maxay ahayd jibriilna nabiga calayhi salaam u yimid uu ku yiri khadiija gaarsii in ilaahay subxaana watacaala yusallimu calayha. runtii maqaam aanan sahlanayn ayuu ahaa. ubad wanaagsan baan ilaahay subxaana watacaala ka siiyey oo maaragtay ilmihiisa oo dhan khadiija u dhashay marka laga reebo ibraahim. ilmaha ilaahay ka siiyey waxaa ka mid ahaa alqaasim oo marka nabiga kunyadiisa ay ka timid macnaha wiilkaas qaasim, abulqaasim ayaa la oran jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. zaynab ayaa ka mid ahayd, ruqaya, umu kalthuum, faatima, cabdullaahi. marka intaas ayay marka u dhashay. cabdullaahina waxaa loogu naaneysi jiray bitayib wataahir. wiilashiisoo dhan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayagoo yaryar ayay geeriyoodeen. gabdhaha ayaga kulligood islaamka way soo gaareen, wayna wada islaameen, laakiin kulligood maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nool ayay geeriyoodeen marka laga reebo faatima oo 6 bilood kadib geeriyootay. waqtigii nebinimada markay soo dhowaatay wuxuu bilaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam in uu magaalada jeclaystay inuu banaankeeda xoogaa u baxo, uu maalmo kusoo qaato banaanka, kusoo tadabburo, uu maaragtay ta'amul iyo tafakur iyo tacabud u baxo. taqriiban 3 sano markay nebinimada ka dhiman tahay ayaa lagu tilmaamaa inay arrintaa bilaabatay. marka bisha ramadaan ayuu bixi jiray, buur la oran jiray jabal nuur ayuu tegi jiray. marka qaar ku yaala maaragtay kahfi ku yaala meesha oo la oran jiray qaaru xiraa ayuu macnaha meeshaasuu ku cibaadaysan jiray. maalmo badan ayuu marka meesha joogi jiray, ilaahay subxaana watacaala ku caabudi jiray,
kownka iyo aayaadka ilaahay ku fakari jiray nolol aada u macaan badan ayuu meesha ku haystay waana arrin macnaha muhiimadeeda iska leh in qofka tagyiirka sameynaya ummadda bedelaya in uu ummaddii waqtiyo ka mid ah in waqti badan u dhex joogo uu noloshoodii waxoodina u jeedo arkayo waqtina intuu banaanka tago uu fakaro uu tadabburo uu maskaxdiisa dihnigiisa saafi ka dhigo waa arrin macnaa aada muhiimadeeda u lahayd markii 40 sano ay u dhammaatay welina aanan la gaarin waqtigii uu jibriil waxyiga la soo degay waxaa nabiga calayhi salaatu salaam kusoo bilowday calaamadihii nebinimada calaamadda ugu horeysa uu nabiga arkayna waxay ahayd alru'ya asaadiqa in habeenkii waxa uu ku riyoodo ay maaragtay subaxii sidii uu ugu riyooday in waxba iska bedelin inay u dhacaan arrintaa ayuu arki jiray waxayna socotay 6 bilood macnaha riyooyinkaas ay arkay usan welina jibriil waxyigii la imaanin walidaalika marka waxaa la yidhahdaa alru'ya asaadiqa juz'un min 46 juz'an min annubuwa hadihi ru'ya waxay ahayd yani maaragtay nebinimada markii 46 qayb loo qaybiyey qayb ka mid a nebinimada waxay socotay 23 sano marka 23 sano haddii 6 bilood loo qaybiyo macnaha sanadkiiba 2 qaybood loo qaybiyo waxay noqonaysaa 46 qayb bay noqonaysaa macnaha waxay noqonaysaa 46 qaybood oo mid kastaba 6 bilood ah marka saas waxay ku noqonaysaa hadihi ru'ya riyooyinkaasi juz'an min 46 juz'an min annubuwa 46 qayb nebinimada qayb ka mid ah ayay ahayd hadihi ru'ya asaadiqa walidaalika nabiga calayhi salaatu salaam sidaan sheegnay waxa uu markaa ku riyoodo ayagoonan waxba iska bedelin sidii ugu riyooday bitafaasiiliha bay u dhacayeen taa marka waxay diyaarin u ahayd nabiga calayhi salaatu salaam waxyigan ku soo degan doono iyo risaaladan u imaan doonto iyo waxyaalahan loo sheegi doono inuu u rumaysto in sidaas loogu sheegay u yihiin macnaha min gayri shakin aw khata'in aw labsin inay sidaas macnaha loogu sheegay ay tahay waxa uu xaqiiqsada macnaha waa tahyi'a nafsiya loo sii diyaarinayo ayay ahayd waxaa kaloo calaamadaha u arki jiray ka mid ahaa in markuu socdo markuu geed soo agmaraba geedkaasi macnaha dhankiisi in laga soo salaamo geedkii inuu salaamo uu yidhaahdo assalaamu calayka yaa rasuul allah markuu fiirina wax meesha taagan qof meesha taagan ma jiro markuu haddana xoogaa socdo dhagax soo agmaro in dhagaxii uu yidhaahdo ma aragtay assalaamu calayka yaa rasuul allah marka calaamado badan ayaa runtii nabiga calayhi salaatu salaam isaga daba imaanayey uu markaa asagana nafsiyan loo sii diyaarinayay in macnaha waxyigan laanna wixii hal mar jog qofkii inay kusoo yidhaahdaan yacni waxaa ka raba marar badan qaab tadriiji ah qofkii inuu la sii qabsado qalbigiisana ay shay macnaha uu sii fahmay sii dareemayo ee u noqoto halka ayaan ku ekeysanayna xalaqadeena insha allahu tacaala intaan xalaqada kale kaga kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh